soo dhawaad saaxiibayaal maalin wanaagsan sheekooyinka caaraha waxyaabaha ugu waaweyn ayaan soo qaadan doonaa maanta marka hore haddii anagu cusubtaa fadlan nagu soo biir page-kana follow inoo dheh waxaan ku bilaabi doonaa golayori Arsenal ayaa qaran ka cabsan jiray Lionel Messi markasta uu wajahayo xidig Argentine golayori Arsenal Zeni ayaa sheegay inuu ka cabsan jiray markasta uu wajahayo Messi jirkan ayaa si kooban uga fariistay ciyaaraha xagaagan balse wuxuu helay fursad lama filaan ah oo dib ugu soo laabanay kubadda cagta kadib markii golayaha Barcelona Marc-Andre ter Stegen uu jilib ka soo gaaray dhaawac oo kaga maqnaan doona inta ka dhimay xaaladka Zeni 7 sano ugu dambeysay uu ciyaaray Juventus ayaa ogolaaday inuu ku biiro kooxda Catalan golayori Poland ee xirfadiisa ciyaareed ka bilaabay Arsenal halka ku qaatay 9 sano oo kula guuleysay Arsenal 2 koob FA Cup ah koorintuusan kooxda ka tagin Zeni wuxuu 2 sano amaah ku joogay Rome halka uu bandhigiisa cajiibka Juventus ay ku qanciyeen inuu noqdo bedelka Gianluigi Buffon inkastoo ku raaxaystay xirfad guul leh haddana goolaha cusub ee Barcelona ayaa qartay Messi uu yahay ciyaarahanka kaliya markasta baqdin gelin jiray marka garoonka isugu yimaadaan waxa mar walba ka cabsan jiray inaan iskor imaano Messi waxa laga yaabaa inay jiraan ciyaartoy kale oo goolal badan ka dhaliyay Zeni ayaa sidoo kale sheegay Mundo Deportivo laakiin wuxuu ahaa kaliya runtii inaan ka baqi jiray inaan la ciyaaro sababtoo ah aad ayuu wanaagsanaa Messi ayaa 3 gool ka dhaliyay Zeni laakiin sidoo kale wuxuu mas'uul ka ahaa wax goolaha ku tilmaamay badbaadintiisa ugu weyneed abid wuxuu Messi ka qayb qaatay hore ciyaartii heerka gurubyada koobka adduunka 2022 Poland 2 gool yeebar lagu dhuftay Zeni ayaa sheegay inuu aad uga baqi jiray Lionel Messi dhinaca kale Pep ayaa sheegay in wax walba laga filan karo mustaqbalkiisa kubadda cagta iyadoo wararku sheegeen tababaraha Spanish kale la xiriiranayo xulka Ingiriiska xulka England ayaa raadinaya tababaro cusub kadib markii Gareth Southgate oo xilkiisu ku meel gaar ah u haya Lee Carsley laakiin Carsley ma doonin inuu shaqada si rasmi ah u qabto taa oo keentay in Guardiola noqdo mid kamid ah musharaxiinta bedeli kara qandaraas Guardiola City ayaa dhacay xagaaga soo aadan taa la micnaa inuu fursad u heli karo inuu koox kale ama xulal kale tababaro u noqdo markii wax laga weydiiyay inuu tababaro u noqonayo Ingiriiska Guardiola wuxuu sheegay inuu weli uusan dhameysan shaqadiisa City ma ahan run inuu noqon doono tababaraha xulka qaranka England weli wax go'aan ah ma gaarin wax walbana ayaa dhici kara dhanka nolosha kale kooxda Arsenal war fiican ayay ka heshay Bukayo Saka Arsenal ayaa heshay war wanaagsan oo ku saabsan dhaawac Bukayo kadib warbixintii ugu dambeysay waryahanka Arsenal oo isaga soo haray xulka Ingiriiska kadib markii ku dhaawacmay kulankii 2 gool daro kala kulmeen Greega waxa laga yaabaa in Bukayo Saka uu daar u noqdo inuu kor yimaado Bournemouth markii Premier League dib loo soo laabto toddobaadka soo socda Saka xilciyaareed wanaagsan ku bilowday ayaa dhaawacmay qaybtii hore ciyaartii Nations League ka dhacday Wembley qorsheynayna in baaritaan lagu sameeyo Saka Jimcaha markuu isaga soo haray safarka xulka England ee Helsinki halka ay Villan kaga badin 3 gool Axadii taageerayaasha Arsenal ayaa walwalsanaa maadaama ciyaaryahanku uu ahaa mid muhiim ah inkastoo rasmi loo xaqiijin xaaladda Saka tababaraha ku meel gaarka England Lee Carsley ayaa tilmaamay dhaawaca Saka uusan ahayn mid halis ah wuxuuna sheegay in haddii la joogi lahaa kooxdu noqon lahaa mid ku dhow inuu ciyaaro kulanka Villan Bukayo uu ku dhawaan lahaa inuu ciyaaro kulanka Villan laakiin ma ahayn cadaalad inaan halis galino isaga ayuu yiri Carsley koox ciyaartii Axadda waa qof wanaagsan waxaan filayaa inuu fiicnaan doono taageerayaasha Arsenal ayaa rajeynaya in Saka uusan kooxda ka maqnaan waqti dheer iyadoo kooxda Mikel Arteta isu diyaarinayaan inay booqdaan Bournemouth fiidnimada Sabtida kuwin kale maanta ugu waaweyn waxa qayb ka ah Jack Grealish ayaa lumiyay 500 kadib markii Trent Alexander-Arnold uu gool dhaliyay laad xor ah intii uu ku jiray gooshii 3 gool ay ka gaareen Villan Ingiriiska ayaa go'aan ku qabtay gool dhaliyay Grealish qaybtii hore kadib Arnold ayaa laad xor ah si qurux badan u dhaliyay daqiiqadii 24aad taa ka dhigtay inuu fuliyo sharadkii Grealish uu sameeyay ah 500 uu siiyay hadii uu laadka xorta dhaliyo kadib Rice ayaa dhaliyay goolka saddexaad Ingiriiska halka Hazen oo gool madadaala u dhaliyay Villan daqiiqadii ugu dambeeyay guushan waxay caawisay Ingiriiska inay ku soo laabtaan wadadii guulaha Grealish ayaa sidoo kale difaacay tababaraha ku meel gaarka Lee Carsley ka la kulmay dhaleecin kadib guuldaradii Wembley isagoo ka hadlay arrintaas wuxuu sheegay in Carsley uu yahay tababare heer sare ah isla markaana uu ku raaxaysanayo ciyaaristiisa kooxda Grealish wuxuu xuseen taageerayaasha mararka qaar ay dalbanayaan weerar badan laakiin tan aysan mar walba guul keeni karin sheekooyinka waxa qayb kaasi laga soo xigtay shaqaalaha caafimaadka Spain Lamine Yamal wuxuu kaliya la tacaalaya dhibaato yar oo muruq qaata oo keentay in dib lagu celiyo kooxda Barcelona wararkan ayaa neefayso ha taageerayaasha Barcelona oo aad ugu walacsanaa xaaladda dhaawac wiilkan muhiimka ah 17 sano jirkan ayaa ka tagay garoonka isagoo dhutinaya kadib ciyaartii Spain la ciyaaray Denmark wuxuu ciyaar 9 daqiiqo ciyaarta taa oo keentay in dareemo muruq xanuun si lagu cadeeyo warbixin ay baahiyeen shaqaalaha caafimaadka Barcelona ayaa codsatay Yamal xilli hore dib ugu soo laabtay kooxda si uu sii wato soo kabashadiisa iyadoo rajo laga qabo in si degdeg ah
ugu soo laabtay garoomada. xogta qaar ayaa la Yamal waxaa la isugu jira inuu sheego kulanka Barcelona Real League la ciyaarayso Sevilla. majalada Sportska waxay dhankeeda leedahay waxaa jirta suurtagalnimo xoogan oo uu ciyaari karo kulankaas maadaama dhaawac loo arkin mid daran. jadwal kulamada soo socda Barcelona la ciyaaraysa Bayern Munich Champions League, Real Madrid ku wajahan La Liga. waxaa aqli gal ah Yamal inuu nasto si buuxda ugu soo kabsado kulamadaasi. sheekooyinkan ayaa ah kuwa ugu waaweyn saaxiib ciyaaraha maanta. haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biir muuqaalkana gaarsii saaxiibadaada. mahadsanidin.